dad badan waxay aaminsan yihiin in guushu ay ka bilaabato ficil. Laakiin cilmi nafsiga wuxuu sheegayaa wax ka sii qoto dheer midaas. Ficilka waxaa ka horeeya dareenkana waxaa ka horeeya sawir maskaxdaada ah. Stephen Covey ayaa yiri begin with the end in mind, oo macnaheedu yahay bilow mashruucaada adiga oo maskaxda ku haya meesha ugu dambaysa ee aad rabto inaad gaarto. Tani waxay ka dhigan tahay ka hor tallaabada koowaad inta aadan qaadin in maskaxdaadu ay ogaato ama ay garato halka ugu dambeeya ee aad u socoto. haddii aad maalin walba xoog u dareento himiladaada, ma aha fikir oo keliya, balse aad la noolaato, maskaxdu waxay bilaabaysaa inay siiso muhiimad gaar ah. waxaa jirta qayb maskaxda ka mid ah oo loo soo gaabiyo RAS, Reticular Activated System, taas oo shaqadeedu tahay inay kala shaandhayso xogaha badan ee maskaxdaada soo gala si ay kugu soo bandhigto waxa aad muhiimadda siisay. sidoo kale haddii aad si dhaba u danaynayso gaari gaar ah ama nooc gaar model aad doonaysa hadduu jiro, waxaa si lama filaan u bilaabaysaa inaad meel walba ku aragto. ma aha in gaarigu hadda soo baxay oo meel walba yaallo, waa maskaxdaada oo hadda qiimo siisay. meel walbana aad markaas u joogo ama aad ku aragtana aad ku tusi doonto maskaxdaada. sidaas oo kale marka aad si joogto ah u dareento riyadaada, guushaada, himiladaada, qofka aad rabto inaad noqoto, maskaxdaadu waxay bilaabaysaa inay raadiso wadooyin, fursado iyo xalka ay halkaas ku gaari karto. laakiin hal khalad ayay dad badan sameeyaan, taas oo ah waxay sugaan dhiirigelin ka hor intaysan tallaabo qaadin dhanka mashruucooda. sida uu yiri William James, oo loo aqoonsan yahay aabaha cilmi nafsiga casriga ah, act as if what you do makes a difference in that. u dhaqan sida inay markaasi samaynayso isbeddel waxa aad samaynayso kale way dhici doontaa inay markaasi samaysay. runtu waxay tahay marka qaar dhaqaaqiddu waxay dhalisaa dhiirigelintu ma aha inay had iyo jeer horumarto. isweydii, maxaan arrintan u rabaa oo aan uga baahanahay? maxaa qalbigayga ku jira? ma noqon doonaa qofka aad doonaya inaan noqdo? sida uu yiri Simon Sinek buugga Start with Why, people don't buy what you do, they buy why you do. dadku wuxuu yiri uma iibsadaan shaygan inaad samaysay, ee waxay iibsadaan sababta aad u samaysay. maxay tahay mushkiladda uu xalinaya iyo wixii la halmaado. nolosha waa sidaas oo kale. dadku ma sii wadaan himilo sabab la'aan ah, waxay sii wadaan marka sababta ay noqoto mid qalbiga taabata. marka fikirku qalbigaaga taabto, ma noqdo riyo oo keliya, wuxuu noqdaa aqoonsigaaga. waxaad maskaxdaada baraysaa tani waa muhiim ee ha iloobin. sida uu yiri James Clear buuggiisa Atomic Habits, every action you take is a vote for the type of person you wish to become. tallaabo walba oo aad qaado wuxuu kuu horseedi doonaa inuu kuu jiheeyo nooca shakhsi aad rabto inaad noqoto. waxa ku noolaanin riyo marmarka qaar kuu timaado oo keliya, ee ku noolow riyadaada si joogto ah. waayo waxa qalbigaaga si qoto dheer u gala ma aha oo keliya waxa aad rabto, wuxuu noqdaa suuraysi qofka aad noqon doonto. xasuusnow, riyada aad si joogto ah u daneento maanta waxay noqon kartaa xaqiiqada aad berri ku noolaato.